uu ka mid ahaa ragga aad ugu dhex jira siyaasadda dalka si fiicanna wuxuu la socday qalalaasaha dalka ka jiray iyo sida shacbigu u kacsan yahay oo uusan wax kalsooni ah dawladdu u haynin waxa kale oo garwaaqsay in daqowda beeluhu ku xirnaa aanay mar saddexaad difaaci karin haddii jagadiisa loo soo dhigto sidaas awgeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu afgambi abaabulo saddex arrimood ayaa ku geesinimo geliyay aragtidani kow ciidamada booliiska oo iska baaba'ay dawladdu aan marna shaki gelin karin mudeecnimadiisa jiritaankii mucaarad siyaad barre saaxiib la ahaa oo si joogto ah dalka dab uga horinayay dawladdana sharafta ka qaadayay aniga iyo siyaad barre weligood xiriir fiican ma aanan yeelan kamana wada hadlin arrimo ka baxsan hawsha xoogga dalka Soomaaliyeed laba adduun baanu ku kala noolayn anigu waxaan ku taamayay sidii ciidamada looga hormarin lahaa dhinacyada tababarka wargelinta feejignaanta iyo daryeelka halka maxamed siyaad barre aanay arrimahaasi u muuqan bishii Janaayo 1969 ayuu siyaad barre oo kaligiis ah goor galabnimo ah gurigayga iga soo qaaday wuxuu igeeyay xeradii taangiyada ee ku tiilay ceel cadde saraakiishii xerada joogtay buu ka wareystay xaaladda ay taangiyadu ku sugan yihiin heerka dayactirkooda uu marayo iyo sida ay howlgal u yihiin waxay ugu jawaabeen in taangiyadu fiican yihiin howlgalna yihiin markii aanu ku soo noqonay ayuu sheeko aan la yaabay oo waliba aanan ka filan ii bilaabay wuxuu igu yiri Cabdullaahi waad la socotaa meesha wadanku maanta marayo goboladii Soomaaliyeed ee Kenya haysatay faraheena way ka bixeen isagoo ula jeeday heshiiska Aruusa musuqmaasuq iyo habxumo baahsan ayaa dalka ka jira doorashooyinka waa lagu shubtaa kuwa soo socda oo bisha Maarsh dhici doonana waa lagu shuban doonaa ee Cabdullaahi ayuu wadanka badbaadino hadalkaasi waa iga yaabiyay waana ii cadaatay in taliyuhu afgambi wado waxaan ku iri taliya askar baynu nahay xilna wuxuuna ka saaran yahay difaaca dalka ayaynaan faragelin hawlo ayna khuseyn oo aynu u dayno cid ay khuseyso inta uu xanaaqay buu igu yiri idinku ma rumaysnidin in cid kale dalka u talin karto waxaan ku iri annagee taliye waa idinka Maxamuud Saleebaan ah waxaan ku iri taliye anigu qabiilka lama aanan hadlin Maxamuud Saleebaanka aad sheegaysayna anigu waxna kuma qabo weligayna wax kama aanan doonan ee waa adiga ninka ay taliyaha ka dhigeen oo maalin walba darajo hor la u dalacsiinayaan caruurtana la korshaan oo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ka wado madaxweynihii dawladda dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake hadalkaygii buu aad u dhibsaday markaas buu xoog baabuurku u soo waday oo kolkuu gurigeygii keenay igu yiri iga dago iimaan laawo yahow ninkii iimaan la waa la arki doonaa baan ku iri inta salaamay siyaad barre wuxuu gartay in wixii uu la huursanaa ay dibadda u soo baxeen wuxuuna ka baqay inaan warkiisa faafiyo balse isaga ayaa shaki qabay ma ahee wuxuu garan waayay xataa haddii aan sheego inayan cidina dhag jalaq ii siinayn wuxuu sa go'aansaday inuu aamusiyo dabadeedna wuxuu warqad u qoray dawladda oo uu ku leeyahay ninkaasi ruushka ka yimid oo dhalinyaradii oo dhan wata ayaa inqilaab wada waxaa loogu jawaabay isaga iyo inta la socotaba xirxir oo kala musaafuri subaxii dama markaan xafiiskii tagay buu igu yiri gurigaaga ayaan kugu xiray ilaa amar cusub ha ka soo bixin maalmo kadib buu ii yaray oo igu yiri 45 bari oo xabsi guri ah baad xiran tahay waa markii labaad oo aniga iyo siyaad barre si toos isaga hor imaanayno markii hore waxay 1956 siyaad barre oo walaac ka qaba in warkii ugu qarsaday uu faafo awgeed ayuu u tagay madax sare oo dawladda ka mid ah oo uu ku yiri saraakiisha ay ka mid yihiin Cabdullaahi Yuusuf Axmed Maxamed Faarax Caydiid Cabdulqaadir Dheel Cabdille iyo Maxamed Nuur Baarqab waxay ku hawlan yihiin afgambi dawladda lagu ridayo siyaad barre wuxuu arinta afgambiga kala xiriirayay saraakiishii madaxda ka ahayd hogaamada iyo qaybaha ciidanka ee kala kadisan dhamaantood marka laga reebo Salaad Gabayre way ku gacan sayreen maalmaha kamida ayaa aniga iyo Maxamed Faarax Caydiid Maxamed Nuur Baarqab Cabdulqaadir Dheel Cabdulle Islaan iyo Xasan Gaamur oo aan aad isugu dhaweyn waxaanu la kulanay Salaad Gabayre waxaan kula talinay inuu ka haro siyaad barre waxaana u sheegnay in siyaad barre uu dhamaantay la soo xiriiray oo aanu ka diidnay inaanu afgambi kala shaqeyno Salaad uu naga diiday inuu taladii maqlo markii aanu kala tagnay baan waxaan ku iri walle haddaadan siyaad barre ka harin oo aad afgambi la samaysid waxaan hubaa inaad adigu noqon doontid ninka ugu horeeya ee tuurka taagi doono anigu labadiinaba waan idin aqaan waana odoorsi karaa waxa xiriirkiinu ku dambeyn doono wuxuu igu jawaabay bal iska daa inaan ka hare waxaan kuu sheegayaa in haddii Maxamed Siyaad Barre igu yiraahdo ilmahaaga ii sadaqee aan ka yeelayo Salaad Gabayre halka waxa gaarsiiyay sida la sheegay in Siyaad Barre ku qanciyay inuu rabo afgambiga kadib inuu xukunka ku soo celiyo madaxweynihii hore Mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo Salaad Gabayre sadaq u ahaa lama yaqaan haddii Mudane Aadan cad arintaasi wax ka ogaa waxaas la malayn karaa in Mudane Cabdirsaaq Xaaji Xuseen
oo aadan cabdulle ra-iisul wasaare ka dhigay uu xiriir hoose la lahaa Siyaad Barre markii saraakiishii oo dhan ku gacan saareen taladii Siyaad Barre wuxuu laba jibaaray been abuurkii uu ku oran jiray saraakiilba afkambi sameynaysa been abuurkaasi oo uu gaarsay nin kasta oo dalka magac ku lahaa wuxuu abuuray koox xafada baran oo afmiinsharro ah oo warkaas dalka oo dhan ku faafiya ilaa warkaasi noqday mid lagaga sheekaysto majlisyada jaadka iyo goobaha fadhi ku dirirka sidaas oo kale Siyaad Barre wuxuu badiyay xiriirkii madaxda la lahaa isagoo ku beer la xawsanaya inuusan waxba ka qaban karin saraakiisha isku halaynaysa awood qabiil ciidankiina kala kooxaystay wuxuu gaaray heer uu ku yiraahdo inuusan mas'uul ka noqon karin foolxumada soo socota oo uu diyaar u yahay in meel kale loo bedelo markii arinta afgambigu warkeedii batay ayaa walaac galay madaxdii dalka dabadeedna waxay u yeereen Siyaad Barre waxayna amar ku siiyeen inuu adadkaan muujiyo oo saraakiisha uu ku tuunsan yahay falkaasi uu ka wareejiyo hogaamada iyo qaybaha xasaasiga ah oo ay joogaan Siyaad Barre wuxuu amarkaasi u noqday fursad qaali ah oo awood u siinaysa inuu xoogga dalka Soomaaliyeed gacanta ku dhigo sidaas awgeedna wuxuu durbo seef la dhexgalay saraakiishu ka baqayay oo kala qaaday jagooyinkii muhiimka ah oo ay hayeen wuxuuna u kala diray gobolada dalka iyo waxbarasho dibadeed aniga waxaa la magacaabay gobolada waqooyi galbeed iyadoo la magacaabay abaanduulaha qaybta 26aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed raggii kala midba meel baa loo miidaamiyay jagooyinkii aanu banaynay waxa uu ka soo buuxiyay saraakiil hoose aan waxba ka aqoon shakhsiyadda iyo hogaaminta Siyaad Barre kuwaas oo indhala aan ku fulinayay amar kasta oo uu siiyo isla markaana mahad uga hayay jagooyinka sare ee uu magacaabay saaxiibayaal qaybta lixaad ee barnaamijkana waxaad ku daawan doontaan dilkii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo sidoo kale cid lagu tuunsan yahay inay dilkaasi ka dambeysay gambigii Siyaad Barre ee October 1969 ayaad markaasi ku sii daalacan doontaan qaybta lixaad ee barnaamijkana halgan iyo hagardaamo